بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن ميل والبو أدجوكتان كنا سود هذا برنامج جار أو قبنايو ويب سايت كعن سومالي أنت بدن أي وضع داودان لو يقانو ديني له برنامج كان جار كأو حنو تلقلني إن أينو كقاعدة لجنو تعدي حدود كيلو جيستي وريها سوماليات الله ونحرسه مرحوم عبدي سلام حيس oo dhawaan gacan ka gardaran ay ku dishay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya barnaamijkan gaarka ah ayaa waxaan ku eegeynaa dhinacyo badan qayb waxa uu ka kooban yahay tacsi ay dirayaan bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Qaahira sidoo kale waxa uu barnaamijkan aynu ku qaadaa dhigaynaa ama aynu ku rogrogaynaa tacadiyada iyo xadgudubiyada iyo dhibaatooyinka alaaba ama badiyaa soo gaara saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadaba waxay la fadhiyaa milkiilaha website-ka Daynile oo loo yaqaano Ahmed Kalay oo dhinacayga midig fadhiya sidoo kale waxa jooga wariyaha caan baxay isna loo yaqaano Cabdirasaaq Cusmaan Bulqaas oo idaacadihii maxalliga ee gudaha Soomaaliya in badan u soo shaqeeyay haatan saxafi u shaqeeya TV-ga qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu shaqeeyaa saxafi Cabdirasaaq Cusmaan Bulqaas idaacadda Barkulan ee ayadu ka howlgashay Geeska Afrika waxa barnaamijka ayaan bilaabeynaa marka hore bal sidee ayaad u aragtaa Kalay geeridii naxdinta lahayd ama dilkii loo geystay wariye saaxiibkeena qaaliga ah marxuum Cabdisalaan Xiis بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركه هore waan u tacsiinayna ehelka iyo qoysaska Cabdisalaan Xiis iyo familadiisi intuu ka dhinto oo dhan waxaan leenahay Ilaahay idinka sawir mustadiyo waxa dishay gacan ka gardaran waxaan Ilaahay ugu baryeynaa macnaha soo shaqo ku jiro waajibkiisa shaqo gudanayo dhintay inuu Ilaahay jannada firdaws oo ka waraabiyo tan kale waxaan leeyahay tacadiga loo geystay macnaha waa tacadi lala yaabay macnaha meel ay joogto dawlad dad nidaam sheeganayo dar kulli bisan daaraasti militariga in uu dilo shakhsi kamida hadana madaxweynihii ra'iisul wasaarihii taliyihii ciidanka kulli ay leeyihiin macnaha waa la soo qabanaya ila qofku wuxuu leeyahay number militariga ama qofkii shakhsiga tuutaha watay haduu qof militari ahaa wuxuu leeyahay number macnaha in la raadiyo ama waa la baaraya la dhahorto oo wax ku qaldan hogaanka sare ee dawladda anagu waxaan leenahay dadkii dilay wariyahaas in la soo qabto maxkamad cadaalada ninkii baryahan dadka bukaaraha ku tooganaa inuu keeno torta umadu ku hortoogta ninkaas hadii ay cadaalad jirto waa macna aniga taas baan soo jeedi lahaa waa tahay waad maasan tahay Kalay bal aan si marka xiga Cabdirasaaq Cusmaan Bulqaas marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa naga baxay nin aad u qiimo badan Allah u naxariistay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis oo ka tirsanaa waxa weeye u shaqeynay iminka TV-ga Hon Cable sidaynu ogsoonahayna idaacado badan hore ugu soo shaqeeyay runtii geeridaasi ku timid Allah u naxariistay Cabdisalaan aad baan oga naxaynaa adaan nahay baada saxaafadda isla markaasina waxaan muuqata in gacan ka xaq daran ay dishay marka haddii aan u leexdo tan qofka dilay oo kale waxa la sheegay in qof dareyska ciidamada ku labisan inuu dilay runtii waxa nasiib darro ah in annagoo leh dawlad baarlamaan leh golaha xukuumadeed leh dhinac walba leh in haddana qof dareyska ciidamada in lagu soo gabado runtii anigu ma qabo in waxa weeye askari ka tirsan dawladda uu dilay laakiin waxaan oran karaa waxa dilay shakhsi kale ama si kastaba ha u dilay waxaan ku tilmaami karaa aniga nasiib darro inay tahay in qof adeegsanaya ciidankii dareyskiisi in maxaa la yiraahdaa uu dilkaasi uu geysto iyadoo had iyo jeer ay dhacaan ay horena u dhaceen dilal noocan oo kala ah inta dareyska ciidanka la soo gashto marka dawladda waxaan kula talin lahaa ama ka ra'yi ahaan aan qabaa anigu in ay la xadeeyo sida dawladaha caalamiga hadda dalkan Masar oo aynu ku noolnahay oo kale dareyska militariga waa dareys gaara marka hadda suuqi aad tagto ama suuqa cataba aad tagto tusaale ahaan waad helaysaa tuute
ama dareys ciidan laakiin uma eka amaba waa ka duwan yahay dareyska ciidanka wadankan ay xiran yihiin marka waxaan usoo jeedin lahaa dowladda in la xakameeyo dareyska ay ku labisanayaan ciidamada dowladda ku meel gaarka oo ay ahaadaan dareys u qaasa iyaga oo aan markaa maxaa la yiraahdaa suuqa laga heli karin amaba cidii walba intay shaarkooda ay soo huwato ay dil naxariis daraa sida tan iminka dhacday oo kale inay geystaan watahay waa uu mahadsan yahay cabdirasaaq bulqaas sida aan dareemayno bulqaas waxa uu shaki geliyey waxyaabaha qaar ay qoreen websaydyada ku hadasha af Soomaaliga in askarigaas uu ka tirsanaa ciidamada dawladda ama booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya marka adiga Axmed Kalaay ahaan yaa dusha laga saari karaya cidii ka dambeysay dilkaasi isaga ah maanta koonfurta Soomaaliya waxa ka jirta laba awoodood waa al-shabaab oo ayaga u ah xarako inta badan gobolada Soomaaliya ka talisa dilin la ka fulin kara gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale waxa jira dawladda federaalka oo iyada ciidamada dhexdooda isdhexyaac uu ka muuqdo qaarkood xadgudub ay geysaan ma aragtay booliska oo boolis rasmi aan la dhihi karin marka dilka isaga adiga sidoo websaydyada qaar ay qoleen dawladda federaalka inay ka dambeysay ma aaminsan tahay mise shaki uu muujiyay bulqaas ayaad muujinaysaa Kalaay saanuni aad baa u mahadsan tahay horta meesha shakiba ma jiro meeshan wax shaki la veeraa ma jirto dawladda ayaga ayaa dhooyay nin ka tirsan ciidanka dawladda ayaa dilay annaga ayaana soo qabanayna macnaha keenayna ayaga dhooyay macnaha wax shaki meesha kuma jiro shakina lama dhigi karo macnaha goobtii lagu dilay waa goobtii dawladda ka talinaysay waa faras magaalihii bartamkii macnaha waxa waaye dawladda waa xuduntii dhowr tilaabo waxay u jirtaa meesha lagu dilay dekada caalamiga ay dhowr tilaabo u jirtaa marka lama dhigi karo macnaha meel ama al-shabaab joogaan ama shakhsiyaad qaas ay wax ku dili karaan aniga waxaan qabaa dadka dilay macnaha dawladda aniga waxaa igu maqaalaa hataa in oo program oo ka sii daayay TV-giisa oo dawladda wax uu sheegay macnaha oo saacado ka hor TV-giisa laga sii daayay ka macnaha in loo aanaynayo maadaama Soomaalidu ay jecel yihiin in dadka la caburiyo aysa jeclaan macnaha in xaq laga hadlo macnaha taa aniga waxaan qabaa in dawladda ka dambayso marka waxaad leedahay shaki kuma jiro in ciidamada dawladda mid kamid ah booliska uu geysay marka hadii taa aynu ka soo gudubno maxaa loo dilay aad isdhihi kartaa ilaan saxaafadu waa xor qofka saxafigan xaq buu u leeyahay inuu fikirkiisa u cabiro maxaad aaminsan tahay sababta loo dilay wariyaha Soomaaliyeed saaxiibkeen Cabdisalaan Xiis adiga maxaad qabtaa wallahi saaxiibkii saanuni aad baa u mahadsantahay ana waxaan qabaa in loo dilo macnaha wax la yiraahdo caburin macnaha in la diido macnaha in saxaafadu ay shaqeyso waayo qofkan wuxuu rabaa wuxuu doono inuu iska sameeyo in la soo bandhigo ma rabo macnaha waxaad moodaa inta sano aan dawladda ahayn weligeed baa caburin iyo waxaan ku jirnaa macnaha hal saxaafado kaliya ma jirin wax toos oo qof wax ka sheegi karo adduunka saxaafadu way ka hormartaa aniga barnaamij habeen dhaweed aan TV kamid TV-da Soomaaliya ka daawanay waa la yaabay xildhibaan ayaa waxay ku haysteen fanaan hees oo qaaday ay macnaha fanaan dhan ku haysteen waxa wax la yaabo macnaha qofku hadduu ku soo bandhigo macnaha qaladkaada sax laakiin adigu asagu inuu cadow ku yahay u aragtid ma marka anigu waxaan qabaa Soomaalidu caburinta saxaafada ay diidan yihiin ayaa waxa keenaysa in wariyaha la dilo ama qoladan shabaabka ahaadaan ama qoladan dawladda ahaadaan qof in runta laga sheego ogol ma jirto runtana saxaafadana sidaa inay ku kobacdo maahine ma sii yaraa doonto way ku sii xoogaysan doontaa insha Allah watahay Kalaay waad mahadsantahay waxaad moodaa dhinacyo badan inuu Kalaay uu ka hadlay adigan fikradaadu way ka yara duwan tahay sidaad ogtahay Soomaaliya saxafiin badan baa lagu dilay laga soo bilaabo Mahad Axmed Cilmi oo Hoon Afriig u shaqeynayay agaasimihii warbaahinta Hoon Afriig Ali Iman sidoo kale waxa kamid ahaa agaasimihii hore Hiraabe saaxiibkeen Saciid Tahliil baa kamid ahaa Mayo baa kamid ahaa oo asagana u shaqeynayay idaacadaha maxalliga ee gudaha Soomaaliya marka dhab ahaantii lama tirin karo marka adiga hadda Kalaay waxa uu qiray in al-shabaab iyo dawladda federaalka labadaba caburin ka dhan ah saxaafad inay geysanayaan marka adigu ma qabtaa in labadaba xadgudbi ay geysanayaan sidaas u aragtaa arimaha uu tibaaxay oo ahaa in askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka uu geystay dilka isaga aad baad u mahadsantahay saxnuuni runtii
marka xaqiiqada laga hadlo waxa wanaagsan in qofka uu xaqiiqda uu ka hadlo anagu hadda ma oran karno ninkaasi shabaab baa dilay ma oran karno dawladda dishayna ma oran karno waayo cadeyn uma hayno wixii waxa loo baahan yahay marka la leeyahay hebel baa dilay maxkamad baa sheegi karta anagu maxkamad mani laakiin waxyaabaha uu sheegayo saaxiibkeen Cabdirasaaq Bulqaas sooma la dhihi karo kalaay saxaafadda Soomaaliya waxa la dhihi karaa ayagu ku dhow xitaa ma aha niman ama dad u diyaarsan saxaafadda si rasmi ah oo academic ah oo si ma aragtay jaamacada kaga soo baxay gafaf badan uu jiro sooma la dhihi karo sida isbarbaraac dhinaca dawladda dad aan siyaasad aqoon ay u horboodayaan dhinaca diinta ma aragtay wadaadada hadaan u leexino ay u horboodayaan dad aan diinta si dhab aan u fahmeen saxaafadan inay noqotay meel ay ma aragtay ay boobayaan dad aan ehel u ahayn oo gafaf badan uu ka dhacayo maadaama Soomaali uu yahay wadan ma aragtay isbarbaraac uu ka jiro muddo ka badan 20 sano بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت ما قبا صوماليا وحن قبا وصحافة كلي أو حرصن عالم كهر رئيس حتى هذا أنت سألوا سوق هذا جرائدها دونك قوين قف مسلنا هدو معناها وحسن مايو إذا عدها دونك وين بومبونيان وحلي هاي نين مسلنا أياسان يالي بريك نيوز أهان إذا عديه واحد مدة إن أي بومبونينا يعني معناها كيس كقفك مسلم كأوجله مرك هذا أنت سألوا سوق هذا نوري وحكنا عدنين عدانا إنه قرحية حفيزكي دولة أو رئيس وزارها إن أو ضد مال كجرو إسكت دوالنا إسكت شراي أولاي هذا إذا عدها هذا قف مسلنا أهالها كيس معناها واحد سميه واحد مودي له إن بومبونيس كهالكاس كبرنا لها فكتاوي كتوس يسامعناها صحافة الصومالية إن أي كهر رئيسو صحافة كله سوتها صحافة الصومالية وحي شكتا وحي دبا أو مركز جرو أما الدبد أما فورن هالسميان أما جودا هالسميان لكن إذا عدها كله أدونك كجروني كان هذا الشيء أنت رسل كودو يفير صدان معناها نقالها ماشي كسوكليو يوحد تاجيريو يمبدأ أي مركز أمسين أي بيت تاجيران كانوا عن قباء الصومالي والصحافة الدودة معناها قلطات ويسكن عن قف من آدك إلهي سبحانه وتعالى ما أنت كالأوي قلطمان لكن إلههم باقل دمن لكن قلت كودو ماها معناها إنه قدلو صاحب كان وحير معناها دولة دمدني تليها عيدا كحوق دلك الصوماليات حاسو قريه معناها إنه يرى معناها كيس كاس دتك دلو وبارنا محكمة ماها لوير ماها معناها تهاوح وكتوسنيسا شخصي قدلين أو شخصي عيدا كيس كتر سنة معناها حقولالك ككينا أو معناها أو يري أناقا أيا كينين ننك دلي معناها أناقا أيا كينين ننك دلي يا أناقا أيا بارين الله بيكالتا أناقا أيا كينين مركو أدريم بكرتا معناها إن أوجين قف دلي واتهاي waxyaabaha haatan adiga aad iimaanayso cadeymo badan ayaad keenaysaa oo in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka dambeeyeen marka qoys buu ka tagay sida la sheegay caruur buu ka tagay marxuum Cabdisalaan Xiis saaxiibkan Allah u naxariisto marka maxaa la gudboon hadii dawladda ama ciidamada saraakiisha ay ogyihiin cidda dilkaasi geysatay maxaa la gudboon maxay kula tahay in ay sameeyaan maadaama lagu xadgudbay saxaafadii maadaama la geysay faldambiyad weyn oo nafdhan oo ma aragtay Allah xarimay la dilay maxay kula tahay in lagu magdhabo qoyskaasi dilka loo geystay wallahi horta awlan waxaan qabaa horta ninka dambiga galay in la soo qabto shacabka hortiisa maxkamadda cadaalad la keeno cadaaladda waxay ku xukunta markaa kadib dadka loo soo bandhigo tan kale waxaan qabaa dawladdu in ay ku leeyahiin qoyskaas micnaha magdhow weyn maadaama nin shaqaysanaya reer dhan u shaqaynayo oo ahaa in magdhow micnaha oo maadaama qof professional oo professionkiis ku shaqaysanaya in magdhow la siiyo ka xoog badan micnaha tan dadka kale la siinayo micnaha aniga taas ayaan qabaa waxaan kaloo micnaha aniga aan soo jeedi lahaa micnaha Soomaaliya caburin laga daayo micnaha bahda saxaafadda qofkuna ha ogaadaan qaladkaada hadduu sheego inaad micnaha inaa saxdid aad isku daydid laakiin haddaad tiraahdo la sheegin micnaha waxaad moodaysaa micnaha dambigayga iyo waxaan rabaa aan sameeyo sideeda ha laygu raaco qofka ogolow in wax laga sheego si aad isku saxdid micnaha waa waxyaalaha laga dhaxla micnaha saxaafadda waatahay waad mahadsan tahay ustaad Kalaay سؤاليه ugu dambeeyay ayaan galeynaa oo waan soo afmeereynaa biidnillah ugu dambeyn Cabdirasaaq Cismaan Bulqaas saxafiinta la dilayo way si kordhayaan oo cida geysanaysana waxa weeyaan waa dadka ku lug leh arrimaha siyaasadda
Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya ha maamuleen ama haysan maamulin dawladda federaalka saraakiisheedana waxay muujiyeen in qudhoodu askari ka mid ah ciidamadu uu geystay dilka loo geystay marxuun Cabdisalaan Xiis Allah u naxariiste marka adiga maxaad u malayn kartaa sidee ayaa loo badbaadin karaa nafta qofka saxafiga ee ka howlgelaya wadan qatartiisu ay badan tahay sida Soomaaliya oo kale oo ma aragtay maamul dhab ah uusan ka jirin kala dambeyn dhab ah aysan ka jirin xuquuqda saxaafadan aan la ilaalin kareynin caburintana aan laga joojin kareynin marka sidee ayaad u aragtaa Cabdirasaaq Cismaan Bulqaas shakhsiyan qaabka loo badbaadin karo nafta saxafiga Soomaaliyeed oo ayagu inta badan naftooda u huray inay shacabweynaha Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku nool ay u soo tabiyaan xaaladaha iyo duruufaha ka taagan Soomaaliya aad baad u mahadsantahay Saxnuuni runtii horta kullu nafs daa'iqatul maut buu ilaahay aayadiisa quraan ku leeyahay macnaha naf walbaba waxa weeye geeri way sugaysaa qofka ama asagoo sariir saaran ha dhinto ama asaga waxa weeye gacan ka xaqdaran ha disho sida saaxiibkeen waan runtii aad aan uga xunnahay oo aan xataa aan cambaaraynayno ciddii falkaasi dilka ah geysatay waayo wuxuu ahaa shakhsi maxaa la yiraahdaa dalkiisa iyo dadkiisa u shaqaynayay maxaa la yiraahdaa sida aad sheegayso waxa weeye qoys xaas lahaa oo caruurna ka tagay iyo xaas runtii waa wax laga murugoodo way waxa iminka Soomaaliya ka soconaya anigu waxaan qabaa marka waxa kaliya saxaafadda Soomaalida ama saxafiyiinta Soomaaliyeed ay ku badbaadi karaan waxa ay tahay siba kuwa dalka gudihiisa ka shaqeeya runtii waxa ay ku shaqeynayaan xaalad aad u khatar ah amaba meel aan amaan ahayn amaba safe ahayn marka xaqiiqo laga hadlo waayo haddaad qof wax ka sheegto qof baa iska xanaaqi karo waxa aad wax ka sheegtay qoriga ku soo qaadanaya awood u leeyahay qofkii inuu ku dilo runtii taasna waxa lagaga bixi karaa anagoo dawlad awood leh marka waxa weeye ilaahay noo dhaliyo runtii maamul waynu leenahay iminka laakiin waxa weeye maamulkii waxa weeye awood buuxda oo wadankii ku maamulo amaba oo aad u shaqeynaysa male marka xaqiiqo laga hadlo laakiin anigu waxaan qabaa marka ilaa dawlad awood leh la helo saxaafadda Soomaalida runtii waxa weeye saxafiyiinta Soomaaliyeed khatar bay ku jiri karaan oo khatarta bay ku jirayaan marka ilaahay marka hanaga samata bixiyo ilaahay ayagana ha ka samata bixiyo waxa weeye dhibaatada واتهاي واد ما سنتهاي Cabdirasaaq Bulqaas ugu dambeyn waxaan u imaanaya milkii laha website-ka Daynile oo Soomaali weyn ay wada taqaano oo in badan ka soo maqnaa Soomaaliya marar badanna xilliga dhibaatooyinka ay ka jireen uu booqday sida ayaa u aragtaa qaabka lagu bixi karo dhibaatooyinka loo geysanayo ama xadgudbiyada ka dhanka ah warbaahinta iyo saxaafadda Soomaaliya gaar ahaan dilka ay geysanayaan qolyaha siyaasadda Soomaaliya ku lug leh ayagu caadaystay inay dilaan isla markaasina ay caburiyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim horta Saanuni wax aan loo dhigtoon horta sideedaba wax lagu ma helo qofku macnaha xurriyad hadaad rabtid macnaha inaad wax dhaliso macnaha waa inaad u dhimataa macnaha waxaad moodaa in la dhalinayo macnaha saxaafad xura dal oo dictatornimo ku soo koray dal macnaha weligiiba aan arkay macnaha idaacado kale macnaha markaad wax u qabanaysid waa inaad ogolaataa inaad ku dhimanaysid macnaha ama dhibaato xog leh ee ka soo gaarayso aniga waxaan qabaa in waa aragtay inta soo wariyaha la dilay haddana hawshu way socotaa inaan macnaha waxay rabaan ha dilaan laakiin ay hawshu soconayso inay ogaadaan waxaan ay dhaamaneen ninka maanta ku dilayo berri asaga ayaa ku dhahay shir jaraa'id ayaan qabaa imaada saxaafadda asaga ayaa raba macnaha inay warkiisa gudbiso marka waxaad moodaa qof asaga ku baahan haddana ku dilayo macnaha waa wax macnaha lala yaabo shabaab markay wax qabanayso waxay ku leedahay kaalay shir baan qabanaynaa idaacadaha noogu soo bandhig noo sheeg bay ku leedahay haddana waxay rabtaa inay ku caburiso waxay ayada rabto ay macnaha ku marsiiso
dowladana waxaad moodaa in sidoo kale micnaha ay rabto markay shir jaraa'id qabanayso in sawirro laga soo qaado qurxan badan in video qatara laga soo duubo in la buunbuuniyo way rabtaa micnaha laakiin qalad baad gashay haddii la yidhaah waxaan baa ku tagrifashay haddii la yidhaah wuu xanaaqayaa uu qofku uu dilayaa marka taa ma noqonayso wax aan loo dhimanna micnaha guul lagama gaaro wariyaashii dhintana waxaan ilaahay ugu banan ilaahay u naxariisto in ka badanna way dhimo doontaa waayo dalku waa dal caburan anigu waxaan la yaabo barnaamijka adeegta kuu sheegay dad professorra xildhibaana oo haysto mu'allif ayay haysteen macnaha nin mu'allifa oo hees oo wuxuu ka qaaday xildhibaana 500 iyo intaas macnaha ma qaadi karo dalkii dhaqaale ahaan wax walba macnaha waa sax 500 baarlamaanka China hataa ma macnaha 500 qof macnaha wax oo sheegay sax haddana ayagii ayaa isla qaldan waxay leeyihiin waa qaldanta oo maxaad u tiriyo noocan baarayso dawladda u sheeg war adigu waa qaldanta hadii lagu yiraahdo qaladkaada sax qofkii thank you dhe waa mahadsantahay laakiin ha u arkin inuu cadow kugu yahay marka Soomaalidu waa inay fahmaan wicnaha waxa la yiraa waxa aad sheegto hadii laga dabiyimaado ogow micnaha inaad micnaha wax ka wanaagsan aad sameeysan la sheeg micnaha qaladkaada dil sheeg wanaagaadan in la sheego marka anigu waxaan qabaa cabruntu ma joogsanayso micnaha inta ay dadka dilaya waa la wadaya insha Allah taala ilaahayna waxaan ugu bareenaa inta dhimatay inuu ilaahay u naxariisto waatahay waa uu mahadsan yahay bal waxaan jeclaan lahaa cabdirasaaq cismaan bulqaas oo kelmad yar uu ku dari lahaa inta aanan soo gabagabayn waatahay saxnani wax kale kuma dareynay runtii barnaamijkan aan isugu nimid wuxuu ahaa barnaamij tacsiya waxaanu u tacsiyeynaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo waliba gaar ahaan saxafiyiintii uu ka geeriyooday الله naxariiste cabdisalaan sheekh xasan xiis oo ahaa nin wariya ama saxafiya waxaanu leenahay marka ilaahay samir iyo iimaan hanaga wada si intaasaan ku dari lahaa waatahay waa uu mahadsan yahay guud ahaan inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo inuu ugu talagalnay inaan si gaar aan ugu eegno tacdiyada iyo xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya sidoo kale anigoo ku hadlay dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed ee qurbaha waxaan tacsi u dirayaa walaalkeen cabdisalaan xiis waxaan leenahay ilaahay ha u naxariiso qoyskii iyo reerkii uu ka geeriyoodayna samar iyo iimaan allaha ka siiyo waxa barnaamijka igala qayb galay saaxiibkeen kalaay oo isagu ah maamulaha ama milkiilaha website-ka Daynile sidoo kale waxa nagala qayb galay barnaamijka Cabdirasaaq Cismaan Bulqaas oo isagu ahaa wariyaashii ka soo shaqeeyay gudaha Soomaaliya haatan ah saxafi u fadhiya Qaahira TV-ga qaranka Soomaaliyeed ahna saxafi u shaqeeya sidoo kale idaacadda bar kulan ee ka howlgasha Geeska Afrika waatahay dhinaca farsamada waxa gacan weyn iga siiyay saaxiibkeen Maxamuud oo isagu ah mudiirka ama maamulaha wakaalada ayadu ama isuudiyaha inta badan baahisa filimada kala duwan adeegyada kala duwan u sameeysa Safi Films magaaladan Qaahira xarunteeda waa Xuseen Saxnuun oo idinku dhaafaya salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh